السلام عليكم غير شرفت لكم سو هذا كل تي في maanta halka aan ku soo gudbinayna barnaamij aad u xiiso badan Soomaalida ayaa ku kala aragti duwan guurka dadka kala qoomiyadaha ah marka gabar ama wiil Soomaali ah uu guursado qof aan Soomaali ahayn waxa bilowdo ka hadalkeeda baraha bulshada qaar ka mid ah ayaan halkan ku soo gudbinaynaa aroosyadaas Ilhaan Cumar iyo Team Maynet warbaahinta Fox News ee dalka Mareykanka ayaa ku soo warantay in xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka Koongareeska ee dalka Mareykanka lagana soo doorto Minnesota ay shaacisay inay la aqal gashay Team sidoo kale Ilhaan ayaa barteeda Instagram-ka soo dhigtay sawir iyada iyo saygeeda cusub ee Team Maynet Team ayaa horay u ahaa la taliyaha Ilhaan Cumar ee arrimaha siyaasadda waan guursaday waxaan lamaane ku ahayn siyaasadda haddana waxaan ku nahay nolosha waa barako alxamdulillah ayay Ilhaan Cumar ku qortay sawir ay soo dhigtay barta ay ku leedahay Instagram-ka xiriirkaas ee Ilhaan Cumar iyo Team Maynet ayaa soo shaabahay sanadkii la soo dhaafay kadib markii xaaska ay wada joogeen Maynet oo lagu magacaabo Beth Maynet oo 50 sano jir ah ay dalbatay furiin Maynet ayaa haatan Ilhaan Cumar u qaabilsan dhanka ololaha doorashada sidoo kale bishii Oktoobar sanadkii hore Ilhaan Cumar ayaa dalbatay inay kala tagaan saygeedii hore Axmed Xirsi oo ay 3 carruur isku dhaleen Xirsi ayaa dhowr bilood kadib ku aqal galay dalka Soomaaliya xiriirkeena guur waxa uu u burburay si aan ka soo kabasho lahayn sidaas waxa lagu sheegay dacwadda ay maxkamadda Minnesota u gudbisay Ilhaan Cumar waxay Ilhaan sheegtay inay raadinayso sharci ilaalinaya carruurta waxayna maxkamadda weydiisatay inay u ogolaato goob sharciga waafaqsan oo si wada jir ah loogu koriyo 3 carruur ah ay iska dhaleen Ilhaan Cumar ayadoo Ilhaan Cumar ah iyo saygeeda Axmed Xirsi arooska labaad waa arooska dhexmaray Idris Elba iyo Sabrina Dore guurka lamaanahan ayaa dhaliyay hadalhayn iyo muran badan oo baraha bulshada Soomaalida ku dhexmaray Idris Elba iyo Sabrina Dore wuxuu arooskoodu ka dhacay hotelka Mandarian ee ku yaal dalka Morocco bishii April 2019 xafladda arooska marka ay dhaceysay Sabrina Dore waxay soo xiratay dhar cad oo qoorta ka go'an oo ay xirtaan aroosyada saygeedan wuxuu soo labistay suud madow shaar cad iyo tie madow ah isaga oo aad u dhool cadeynaya ayuuna ka qayb galay xafladda arooska Idris Elba iyo Sabrina Dore ayuu arooskooda ka dhacay dalka Morocco waana aroos hadalhayn aad iyo aad u badan iyo muran badan ka dhigay baraha bulshada Soomaaliduna aad iyo aad iskugu maandhaafeen guurka saddexaad ee ugu la yaabka badan ee muranka badan dhaliyay waa guurka dhexmaray Ben Kitili iyo Amina Mude bishii November ee sanadkii 2018 ay isku guursadeen magaalada Nairobi ee dalka Kenya balse hadda waxa soo shacbaxday inay kala tageen Soomaalida dalka Kenya ayaa aad u hadalaysay guurka dhexmaray wariyahan u shaqeeyay TV-ga KTN ee dalka Kenya iyo gabadhan Soomaalida ah baraha bulshada ayaa aad looga sheekeynayay guurka Ben Kitili iyo Amina Mude oo khalgalay kadib markii ay muddo 2 sano ah saaxiibo ahaayeen ilman isku dhaleen balse meesha dhibka ka jiro waxa waa saaxiibtinimada 2 sano ilmaha lagu dhalay oo ay Soomaalida aad ugu caroodeen Ben Kitili iyo Amina waxay ku aqal galeen xaflad ay dad yar oo saaxiibadooda ah iyo xubnaha qoysaskooda ka soo qayb galeen laakiin dad xoog leh ay baraha bulshada ka dhalisay taas oo sababtay in dadka ay si weyn uga soo horjeestaan ugana hadlaan arrinkan muddadii qarniga ahayd ee u dambeysay Soomaalida ayaa la sheegay in ay si tartiib ah u dhexgalayeen mujtamacyada kale guurka afraad waa guurka dhexmaray Iimaan iyo David Boy Sara Maxamed Cabdulmajiid oo loo yaqaan Iimaan ayaa ah gabar Soomaaliyeed oo dharka fashion-ka xaysiintiisa ku caabaxday waxay mar ka soo muuqatay heesta caanka ah ee uu qaaday Michael Jackson ee loo yaqaan Remember the Time sidoo kalena uu ku jiray jilaaga caanka ah ee Eddie Murphy waxay isqabeen heesaagii hore ee geeriyooday ee Ingiriiska u dhashay David Boy 1992 ilaa iyo bishii January ee 2016 xilliga uu dhintay Boy Iimaan iyo David Boy waxay isqabeen waqti ah 24 sano waqtigaas kor waxay u dhaxday Spencer Haywood oo ahaa ciyaartoy Mareykan ah oo kubadda kolayga ciyaari jiray iminka waa 63 sano jir
waxayna dhashay 2 gabdhood. sidoo kale guurka ugu dambeeya ee halka aan ku soo gudbinayno waa guurka Daar Xasan Shire iyo xaaskiisa Stella. dadka magaca ku dhexla Soomaalida dhexdeeda ku faraxsan guurka ajaanibta waxa kamid ah Dr. Xasan Shire Sheikh oo madax ka ah hay'adda difaaca xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika. Dr. Xasan Shire iyo xaaskiisa Stella iyo gabadhooda Caraweele ayaa waxay imaadeen muddo ka hor magaalada Muqdisho, waxaana xaflad weyn loo sameeyay oo soo dhaweyn ah. waxaana xafladaas ka soo qayb galay madax ka tirsanay dowladda Soomaaliya ee xilligaas. guursiga ajaanibta ma ahan wax ku cusub nolosha dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan marka la eego dhanka isdhexgalka mujtamacyada dega xeebaha oo ka duwan kuwa deegaanada aan xeebaha lahayn ee u badan reer guuraaga. doodaha qaar inay noqdaan hadalhayn aad iyo aad u weyn waxaa saamaxay baraha bulshada oo ay meelo badan dadka ra'yigooda ku soo bandhigaan. guurarkan ayaana dhaliyay dood aad iyo aad u fara badan, waana guurar kuwa ka mid ah aysan waafaqsaneen shareecada islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed, halka ay ka dhacdo Soomaalida in Soomaaliyeed oo islaam ah oo nagu dhaqan ah inaan gabadheena u diidno, ayadoo la arkayo dad Soomaaliyeed oo ku faraxsan gabar Soomaaliyeed oo nin aan ku diin ahayn guursatay. ana qeyr sharafta la diyaad muuqaaladan aan soo gudbina aad ka hesheen si share gareeya videoga like saara si anaga dhiirigelin ugu noqoto channelka subscribe si aad ula socotaan muuqaalada dambe aan soo geli doono. waad mahadsantihiin, maalin wanaagsan.